sida aad daawateen qaybtii hore ee waraysigan ayaa madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed waxa uu kaga hadlay wadciga maanta ay ku sugan tahay dalka Soomaaliya iyo dhibaatada dalka Soomaaliya ay u geysanayaan kooxaha xagjirka waa ururka al-shabaab oo lagu xiriiriyo al-qaacida waxaana madaxweynuhu ka digay inay taasi ka sii dari doonto haddii maanta aan wax laga qabanin waxa kaloo si faahfaahsan uu uga hadlay muddadii xilka uu hayay iyo dhibaatooyinkii ka hor yimid iyo murankii soo kala dhex galay isaga iyo ra'iisul wasaarayaashiisa madaxweynaha qaybtan labaad ee waraysigana waxaanu ku bilaabaynaa oo ay noo joogtay qaybtii hore markii xabsiga laga soo daayay ee uu xidhay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyadoo xabsiga laga soo daayay isaga iyo rag kale oo uu ku jiray dabaqiyaaqadii sanadkii 1975 mar kale ku soo dhawow Universal TV markii xabsiga laga soo daayay dabadeed maxaa xigay bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdisalaam anagoo 6 sanadood xirnay oo isu maray xabsi Baraawe iyo Mandheeradii waqooyiga iyo xabsiga dhexe Muqdisho ayaa bishii Oktoobar 20-keedii 1975 habeenkii ra'iisul wasaare hore Maxamed Ibrahim Cigaal iyo wasiiradii la xirnaa la soo daayay ayaan la soo daayay nin walbana gurigiisii ayaa la geeyay أنا قلت لي ساعة وحوالي هاي مركين الأسود هاي بركي ميد نايتي هبين كاس نقول بقول جسوا اللي جاي وساحضي هبين كي كحي جاي وبرية وخلاء أي هاي كوبي يلا مع تنكي أكتوبر ومالنتي كعانكي سوماليا oo dhashay laguna xus jiray ayaa saddexda aroornimo nin walba gurigiisa laga soo yar laga soo keenay waxa nala yiri waxa idin doonaya gudoomiyihii golaha sare markaa madaxweyne wali ma hayne waanu nin walba gaari baa loo geeyay gaari uu soo raacay waanu isu nimid markaanu u nimid oo isna daadinay lix sanana ismaanana ayaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri dambiilayaal baad ahaydeen niman xun baad ahaydeen sidaad yeesheen waxa istaahisheen ciqaab inta ka badan waa noo hanjabi mise waa nabaqsanaya garanay annagiina waxaan soo taagnay كمان حرنين يا مركا كوجو هليني يريتان كان laga yeeray madaxweynaha aniga iyo caydi oo nala soo wada daayay xabsiga dhexe oo Muqdisho laga soo daayay deeto oo aanu 2 sano iyo 8 bilood ku xirnayn xabsiga Mandheerana waxaanu ku xirnayn 3 sanadood Baraawna 4 bilood baanu ku xirnay wuxuu yaani naga dhaadhixiyay inaan qirano in wixii aanu ku xirnayn ay xaq ahayd oo aanu dunuub galay anana waa ka muranay waxaan niri anagu dunuub ma galinay itaal baa naloo sheegtay adiga madax ka hargii noo sheegtay hayeeshee haatan haddii aan dibadda joogno maxaa noogu cadaadinaysaa walaalaha xaq baad ku xirnayd muran dheer baan leeyahay saddexdii saac ee ka dhimanaa habeenimada murankaas oo harta naga dhawaaqay waa barigii iyo wuxuu nagu yiri dhageysta niman waxaa tihiin khaldan oo iimaan lawayaashii aan waagii ku ogaa markii la xirayay ayaa tihiin weli ma idin hanuunsamin hayeeshee labadiina ciidamo idin dirsan maayo ilaa idin aamini maye nin walba wakaaladihii markaa jiray yaan mid u dhiibaya
aniga wuxuu yidhi meeshii fiyaad la oran jiray iyo gaadiidka iyo qalabka dayactirka oo talyaaniga aanu caawa kala wareegin ayaad waxaad ka noqonaysaa maraya guud waatay aydiidna wuxuu ku yidhi waxaad maraya ka noqonaysaa wakaaladii dawooyinka oo asbiima la oran jiray labadooda xafiisna way iska soo horjeedaan midna fiyaadba wuxuu kaga yaal dhanka ka soo horjeeday warshadii fiyaad meesha aniga la geeyana waxay ahayd inta fiyaad baarkeedii in yar la dhaafo waxay ahayd meel shirkadda markii talyaanigu haystay ay deganaayeen laakiin aan ka fogeyn waxaan u qaadanay mar haddii labadaa meelood isu muuqdana la kala geeyey dee kolley waana ilaalinayaa in halkaa laydinkaga warhaynayo isku group ina idin ilaalinaya kaana wuu arkaa kaana wuu arkaa xafiiskiisa wixii gelaya wax kasoo baxaya waxa dabagal dheer baan inala ku sameeya markaa kadib waxaan anigu fiyaad joogay aydiidna asbiima joogay 20 bilood oo madax ka ahaa runtii anigu way hagaajiyey wakaaladii caydniidna saqasoo kale u yeelay laba ninoo saaxiibana waanu ahayn waayo kadeed usas baan soo wada maray ciidamadan ka shaqaynay haddana staff college oo raashiya ah oo 3 sano iyo baraan soo maray marka aqoon aad u dheer baa isu lahayd haye marka dee macruufna waa ahayn saaxiib baan ahayn aabihii xataa waa garanayay caydid aniga muhiim ma noolayn waxaa marka uu na yiri waxay yeelaysaan waxaad leedihiin aqoon military iyo khibrad dagaal waayo anigu waxaan ku jiray dagaalkii anoo battalion commander aan waxaan galay 64 dagaalkii inta diyuuradaha habashida iyo weerareen oo xuduudda la isku soo weeraray anigu ninkii daafacay baan ahaa bakool iyo gado ninkii daafacay ayaan ahaa aydiid markaa ma jirin ciidan unit furinta jira ma jirin talisku ka shaqaynayay wuxuuna yidhi labadaa meelood baad kala tegaysaan 20 bilood markaan joognay dagaalkii 77 oo dhex maray Mengistu iyo Maxamed Siyaad Barre ayuu inta noo yeeray wuxuu khibrad baad leedihiin tababar dheer baad leedihiin aqoon badan oo ciidan baad leedihiin aniga wuxuu yiri meeshaad 64 ka dagaalantay oo ah doolo jahadiisa halkaas waa front baad ciidanka xoogga dalka iyo wixii boliis iyo lagu daro iyo jabhadda Soomaali Abow anu garan Soomaali Abow markaa waa la yaabanahay maxay ahayd baan leeyahay Soomaali Abow baad madax u tahay ciidanka markii la isku dardaro 30 kun oo nin buu ahaa saas wax deegayo nagayaad ka gudbaysaa halkaas waa mandhawaagii talyaaniga qabsaday Itoobiya wuu la socday wuu noo sheegay wuxuu yiri inta gaal talyaaniga oo madax noo ahaa faras noo fuulay baanu annaguna waxaan lugeynay Addis Ababa waxaan leeyahay Muqdisho ila Addis Ababa markii wadada uu yiqay waana dhul kala fog Itoobiya markii aad dool u dhaaftana waxaad gelaysaa buuro iyo webiyaal iyo dhul kayma ah oo dhir badan wadada dhinac uga bayrtana male markaad naga ila qabataan waad gudbaysaan meel awaasa la yiraahdo oo leeg leh baad sii maraysaan yaad sii maraysaa ciidankaagu Addis Ababa koonfurka soo weeraraysa Addis Ababa koonfur kaga imanaysa oo marka qorshaha way ku jirtay bilowgiiba in Addis Ababa xitaa la gaaro adeer way ku jirtay anigu go'aan wax ku balahan qorshaha wax ku balahan waxa yeelay anigu fiyaad baan fadhiyay oo marka ciidan ka shaqeynay ciidanka harar iyo dirir dhaway weeraraya
kaasina halkaasuu markuu dad haraya diri dhaba qabsaduu soo gudbayaayo webiga hawaashuu ka soo gudbayaayo waxaa isugu imanaysaan meel isagu markaa magaceeda yaqiinay lawaagi uu maray oo magaalaha oo adigu iga raaliya haddaan halkaa kaa yara dhex galo sida dad fara badan ay tilmaamaan ama taariikhyahanadu ay sheegaan adigu dabcan xog hoosaad haysaa waxaa dagaalka loo gelayay in la xoreeyo wixii lagu tilmaamayay Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida Ethiopia marka qorshuhu mu ahayn baad leedahay in halka lagu koobnaaday ilaa Addis Ababa absolutely maahan xeelana la yiri Addis Ababa koonfurka soo weerar ciidanka har iyo dirdhaw ka soo degayaan waxay soo imanaysaa wadada ka timaada ee koonfur oo markii dambe mooyaale iyo Kenya iyo aada iyo wadada harar iyo dirdhaw ka timaado oo waxay soo imanayaan magaalo aan weynayn la yiraahdo Mocho oo Addis Ababa 70 kilometer ka sokoysa deeto wada jirahan baa la rabay inaanu Addis Ababa qabo anigu waxaan ku iri masuura galba ciidankeena iyo awoodeena iyo marka la eego haddana waxay noqotaan haabi oo waxaan iri dhulku seeya ninka taliyaha ay dhulka iyo jawiga iyo dadka dhulka degan iyo waxaas oo dhan uu ku tushaa ila waa dhibaatooyin ka hor iman kara markuu dagaalka galay wuxuu yiri dhulka iska dhaafay saayay waayahay haddii ciidankii hardhiga dirdhiba soo digi waayay see la yeelaya markaas laga tashanaya يعني waxaan arki jiray dagaal hadii la girayo in horta political objective ama ula jeedo siyaasadeed in state kuleeyahay hadii yiri Soomaali galbeed baa la qabanaya marka ula jeedadii waa taa hay'ashay strategically inay suuragal tahay anigu waa ila cusay midda kale dhul weyn oo runtii geographically ku adag ciidankii soo galay bayleeda Ethiopia waxa leedahay manpower badan ama shacab badan hadii dhulkii wadankii hadda radirayso wadan waa la tixgeliyaa wadankaasi suu yahay dadkiisu inuu yar yahay inuu badan yahay inuu ila wamaan baawarka hadhowto ciidamada laga dhigay iyo dhulku inuu baaxad weyn yahay oo laaran yahay in kale wala labada markii laga badan yahay hadii strategically inay ku qalcata laga yaabo waliba hadaadan dagaalka yaani bilowga aadan bisha ugu horeysay bisha ku xigtay aadan adkaan oo aadan meeshii lagu cayimay inaad qabatid qabsan dagaalku dheeraanaya markuu dheeraadana ciidankoodu dhammaan mayo intaa wax kumayal 40 konton iyo maqan 60 milyan bay ahaayeen markaa Ethiopia inaguna 10 milyan oo qof kulligan marka la isku daro kulli jamhuuriyadda Soomaaliya oo saasan filaya hadda waa lagu biyo keenaya dii dagaalku dheeraado waxa kaloo yaani suuragal ahayd dawlado kale oo Ethiopia u hilinaya inay dagaalka soo galaan speed baa marka loo baahnaa Cabdisalaam speed in guula lagu gaaro oo objectivekiina loo diray laakiin bilowgii taas waa dhacday Soomaa markii dagaalka la galay sidaynu la wada soconno Soomaaliya ciidanka ay markay haysatay waa ku xoog weynaa kii Ethiopia waayo Soomaaliya equipment-igi haysatay iyo tababarka lahayd aad bay u xoog weynay saraakiil wada tababaran oo staff college soo wada baxay baa ciidamada hogaaminayay furuntayda ana madax ka ah furuntay baari qaar kala hogaaminayay harar iyo dirir dhabe areeya marka harar iyo dirir dhabe ku dhawaayeen wasiirkii gaashaandhig oo taliyay ciidanka ah oo cali samantar ah oo aanu Iraaqeed oo course meeting baa runtii ay hoos imanayeen hogaaminayay waxa marka loo baahnaa in markii qorshaha la sameeyay
lagu talagalo factorieskaas oo dhan hadda anigu waxaan u qaatay in lagu talagalay ha yeeshee markii dambe oo ciidankii harar iyo diridhaba kasoo digi lahaa isoo socdo anigu naga ila waan gaaray laakiin awoodan intaa ka badan sii socon karo haddii aan ciidanka la xoojin ma haysan ciidanku xoogaa artillery la socday inta kale infantry buu ahaa taangis iyo ABCs iyo dayuurada iyo magaciisi iyo maartay dagaalka kula jiro oo taageeraya ma jirin maalin qurab dayuurada inuu soo diray aniga ciidankii hore iyo diridhay markuu socon waayay anigu waxaan hindisay war haddii ciidankana wuxuu madaxa loogu garaacayay difaac uusan mari karin khasaare badan baana ku gaarayay waxaan codsaday markaan aan Muqdisho tago muqdisho markaan tagana isaga uun bay qaabilayay maxamed siyaad barra ay qaabilayay la cali sanatar wuxuu jiraa kore ya wuxuu jiraa waxaan sii samaystay qorshe strategical oo macquul ya qorshe markaad sameynayso aad ciidan tahayna waxaad ku talagalaysaa factories badan waxaasoo dhan anigu oo runtii tixgeliyay ayaan qorshihii sameeyey qorshuhuna dee marna waa qoraal oo waa ribood iyo fikradaada aad dhiibanayso marna maabka la dugeynaya oo waa warbixinaad bixinayso waxay iman diyaarsaday waad iman kartaa baa la yiri waa tegey galab baan soo galay magaalada tayarad baa dool igu soo diray yara oo boliis ku lahaa laakiin nagale ilaa doolow gaari waan ku soo maray madaxweynihii oo la fadhiya nin sarkaale yaan soo galay oo u im soo fariiso yiri soo fariiso matin soo fariiso ninka markaa la fadhiyay wuxuu ahaa maxamed nuur galaal oo furuntada diridhaba markii hore madax ka ahaayoo laga soo bedelay maxamed nuur galaalna raash yaan wax ku baran jir waase iga dhalin yaraa iyo gaabna ayaa garanayay ma garanaysaa anigu markaas waxaan idhi anigu waxaan u imi guddoomiye kuu soo jeediyaa haabuu yiri miis baa meesha yiri wuxuu hoos fadhiyaa xafiiskii uu ku shaqayn jiray seexana jiray oo airportkii muqdisho ku yeelay geed ku hor yaal oo weyn baa miis yari u yaalo waxa ugu rakiban jaliskii baalkii may qaylinayay markii uu soo galiyay geedkaas u garaaca wuxuu yiri waad yeeli kartaa bilow ma sheegin waxaan wato markii hore waxay baan explanation galay horta reportkii baan dusha u dulmaray oo akhriyay qaybihiisii muhiimka ah deetana maabkii baan intaan kala bixiyay oo miiska saaray baan iyadana ka hadlay wuxuuna way isleeyihiin reportka iyo maabku wayna isku yimaadaan waxaan ku iri guddoomiye amarkii aad nasiisay anigu waa garanaya anigoo naga ilaan jooga ciidankii harar iyo diridhamana soo socon waayo de garanayo difaac adag miyaa ka hor yimid ma wax kalaa dhacay difaac ay mari kareen baa madaxa loogu garaacayaa ciidankiina khasaaro badan baa gaaraya dee taasina waxay keenaysaa ciidankii awoodiisiina inay yaraato muddaduna dheeraato muddo dheerna haddaynu dagaalkan ku jiro aakhirka waa jabayno waxaan kaa codsanayaa qorshihii strategicalka ah ee dagaalka ciidamada ugu dirtay in wax laga bedelaa maxaa la yeelaa waxaan ku iri ciidamadan meesha aad madaxa ugu garaacaysaan waxaan kaa codsanaya ka daayo waayo mar haddaynu guulo dhalinayno hore u soconayno magaalooyinkii loo xilsaaray inay qabtaan ee ahaa harar iyo dirirrabe haddaanay gaarayn oo muddo dheer ay ku qaadanayso inta markii aad weerar gelisaanba lasoo jebinayo khasaaro badan dhacayo ciidanku halkaas waana runtii ku itaal yaraynayaa
oo khasaare badan baa gaaraya waktiguna waa dheeraanayaa waxaana muuqata ciidanku halkaa inuusan mari karayn hadda haddaan la bedelin qorshaha maxaa yeela ilaahay buu yiri waxaan ku talinayaa bani meeshaan ciidanka madax loogu garaacay hadduu mari waayey ciidanka difaaca la geliyo ciidan badan oo ka mid ah oo culus wata ha la soo wareejo koonfur ha loo soo wareejo oo aniga ha la ii keeno annagu markaa horey wuu socon karaa markii taangis iyo a b c iyo dayuurado iyo magaciis iyo waxaas ay taageerayaan anigu addis ababa koonfurteeda waa tegi kara runtii laakiin nageele iyo addis ababa waa 600 kilomitr oo lake iyo webi iyo buuro iyo mirana markaan sidaa iray wuxuu yiri ka soco ka gudub weeye yani uu sheegay marka waxa kugu muuqatay inaanu talada qaadan anigu taladaasaan soo jeeday wuxuu yiri ka gudub haddaan ka gudbo khasaara iman doontee yaa mas-uulka noqonaya adiga waxba kaabay gelina ka socday markaan dhameeyay anigu explanationkii wuxuu yiri ka soco waxaa yeelaysaa sida yeeli maynee furuntada aad ka timid ku noqo aniga waxay ii caddaatay ciidanka soomaaliya guushii laga rabay bilowgii inuusan gaarin waayo ciidankii socon waayey na socon mayo ciidankii anigu aan la joogaynaa ciidan xoog oo ilaa Addis Ababa yani markaa beegsan karayay maaha waa tahay sida aad u sheegaysay waa laabtayda xirtay waa laabtay subaxdii baan dagaal raaco dolowan kaga degayo meeshayda taliskayga baan ku noqday waxaan garanayay muddadu inay dheeraanaysa dagaalka waxaan garanayay raashka oo aada u ayidayay waayo raashka waa kii maxamed siyaad bare eriyey u ayidayay dhinaca Ethiopia qoladii mingistu madaxda u ahaa Ethiopia qabsatay oo caqabad samaysay waxaan garanayay inuu dalal kale oo shuucinimo sheegto sida Kuba oo kale inuu ciidankoodii dagaalka soo galin karo waxaan garanayay balaaninka iyo maaragtay hogaaminta ciidamada iyo magaciisii inuu siinayo sidii waa dhacday si difaaci loogu jiray ama kaligay ma socon karo ayaa horta waxaa yimi Kubaankii sadaraan Yaman oo markaa xor ahayd oo hanti wadaag iyo ahayd raashiya janaraaladeedii iyo marshaaladii iyo magaciisa ciidamada Liibiyaana iyo kowde Liibiya maaragano laakiin Yamanna waa hubaa raashiya iyo madaxdoodii timid oo dagaalka Ethiopia u hogaaminaysana waan hubaa oo nin generaal oo Petrov la yiraahdaa hogaanka madax ka ahayo majalka waayay fara badan oo taangis iyo magaciis iyo jinil aan halka ka yar dhex galo taariikhdaas waad cadaysay markii dambena sida aad sheegaysay bay u dhacday sida taariikhyahanadoo dhan qirayaan Soomaaliya markii hore guulo waxay gaadhay aad u wanaagsan markii dambe waa la soo jabiyay 87kii markii laga soo baxayay Ethiopia ciidanka Soomaaliya dib u soo guranayay sidee buu ku garowsaday madaxweyne maxamed siyaad bare taladaas oo ku qaatay waxaan filayaa anigu ma weydiin laakiin waa malayn karaa in dawladda saaxiibaha runta u sheegay oo yiraahdeen meeshii intaas dawladood oo xoog ah baa soo gashay Ethiopia ciidamadeedana iyaga hogaaminaya awoodda ciidamada Ethiopia ku dagaalamayaan iyo ciidamada u keenay oo wada socdaan iska caabin kara maysan nimanka Soomaaliya inta la qabsan ciidankaaga la bax Algeria waa hubinay saatay waa huba go'aanka wuxuu gaaray markaa reality-ga loo sheego adduunka u sheegay dalalkii saaxiibka u sheegay way arigana dad ciidanna waa la jabiyay waqooyiga waa ciidamadii waa jabeen
ilaa khasaare badan baa gaaray anigana bishii sagaalkeedii march miyay sagaalkeedii baa waxaa la yidhi dib u gurasho xeel dagaal samee dib u soo bax ciidanka qaar goriilo ku dagaalama meesha kusoo dhaaf ciidanka intiisa kale waxaa kusoo gelisaa xuduudda doolow waxaanad yeelaysaa difaac ka gal halka oo xadka Soomaaliya inaad difaac ka gasho 5 maalmood iyo 5 habeen baan soo socday anigu Ilaahay iyo diinta way gaadidii u filan ma haysan oo gaadid celis iyo magaciisa ku shaqeynay haddii aad dib u gurasho samaynaysaa la iskama yaacee waxa weeye adigoo dagaalamayaaba ciidankaaga dib loola baxaa qaar difaac inta ku sii jiro inta kale baa dib loo saaraa 5 maalmood iyo 5 habeen kadib baan ciidankii labadii guuto ugu dambeeyay ciidanka baa la socday 15 baan webiga ka yimaada xagga Kenya iyo Ethiopia xuduudooda daawo baar ma leeyahay oo Juba kaga daray doolow meeshiisa kaas bridge aan dhiganay oo bridge mobile aan dhiganay oo ciidamadu lahaayeen markaan ka soo talaabay oo aan dhankii Soomaaliya yimid ciidankana ila wasi hormariyay qaad amar baan siiyay difaac ku sii jira ciidankii Ethiopia oo sanka igu hayaba soo galay xabad waan isku bilowna halkaas aan isku hor fariisanay oo iyagu may gudbi kareen ilaa difaac adag baan ku jiray runtii laga yaabo inay naga badnaayeen laakiin nagama xoog roonayn qalab ahaan nagama fiicnayn weli halkii anagoo joogna baa waxaa ii yimi niman saraakiila oo taliska guud uu soo diray nimanka amar baa la soo siiyay أنا كمان رقبة إلا مركي لجسوا بحي شيء إذا بدنا أسكر على الرجل ده العصية كانوا سديتني إلى نبى أنت اللي سوك يعني يلا ونقول روح للصاح والرجل وناس فأنت اللي سوك يعني يبقى ينتهر على قدري باب كل ولا لا أنت سواء أنت بدل أد لوجه الله هدي أد إن يكوي راها كنو محل لوجه ذي تلابدا محل لوجه إذا ما ضعني هدي يسوون نقدان وذلك يكون نقدان يعني غلا بيسكت دي كلام وشد دي سماين كلام شعبك عيدنك وعيدنك الدجال بالود ريه هذا ولا يسوى صار سيدي دجال كمرة لوق شيء سيدي لوقل يوم عيسى وانا خالد هاي في دان الله كيابيه هذا محمد زياد بركليه كويدين مي أنتي مركز شوكتي سراكيلا إذا أقوان تلاهي هذه ويخشرين وهي قرشها يجا وجيني وها لولا شيء شعبك يعيدن كسون نقضي والدجال كسون نقضي إلى هنا انقلاب صمين الوع بقرين قليل مركي هدنا هرجيس عيدن كي قارك وكون نقضي لحسركال أو مع أطبران والدجال كوشرتي أي هرجيس اللي وتوقت يعني هو عبسي قليل خير والله يعني عيدن والله يعني إنه بتشي يعني هو كله حقوقاتان يعني هو كله حقوقاتان هو عجيب مركب وفتي أنا ليس هذي رأيين هو حيابي ليس شيء هو حوي مركب عيدن كي ودول مرين أو جان أو مركب سبوت كان بعيدن وكويه وقاعدين وحي قاعدين وحلقات دونية سي شعب كي عيدن هو وحقوقاتان وأنا نوحنا الله بهاي أسمعين هذا من الرجل الله يكاد عدان بعد كم مرة لقوا شيء إله لا يقول لكن سايقول أنا واثر مقعي سيما شيء مرة به هو شوفه هو سركال كهذا وقامني أنا وك هو كان هو إلى شوفه بريسي ميليتري هو يسوي شيء قارر وهو يبغى كل شيء ما قرر نسام ترى ما لقوا شيء مرة هذا يقول هالليا يقول لي أنت صاح ولا رجل الله يا أنا هو أنت صاح ولا ما قراني rag soo cararay iyo rag dambi galay iyo rag magaciisi iyo
كان باليري أول الله يسي وحلو قط أنا وحصا عرنا ماهي حمان سمي أنا ماهي إذن كيسو إذن كنت دقال ما درين باكو معلانيا هذا يعني دي هذا دقال درتين إذن كيسو إذن كو أنا الدفاعي كتير أو أنت اللي يسكت اللي مروه سو إذن كو يما أوران كسر نقول حدود دنيا ودبقروشة سمي يوم دفاع كقل حدود دين ها دي مركي ورنا أمريكا بحسين بعيد وقال يدقال باكو مركي دنبنا أمرت بحسين بكو صباح مركا أنا أقول الله يا مهي وحلا طبعا اللي هو مركي ريحو ودي دي أنا وحلا أنا والضمير كاس ما يعلن كاو مركا سن أجادي شيء إن رجع سيدتني يدارات كالو لاي هرجيسان إن لحسر كالو كل ولا أنا خين لو تكتي سيد قواس أو خلبة للدون يا مركا وده صايره وعيدهم زندن بلاهين وأنا أنت اليوم هذه أنت دجالك اللي وجهي وأنا صوماليا ووطنيا أهي يعني عيدا صوماليات وعد مدحوا أهيدا مقعيسي وحلقات وهلا كان هلا الله أنا وحيلا نقطة وحق فرعان إلا من نقول واضح حد يرقب أنا أقول مرة ما كان ولي نتكلم haddii marxaladda lafteeda su'aal yar oo kala ka weydiiyo ciidanku ciidan soo jaway buu ahaa dib u garashayaal dagaalka lagu tilmaamo laakiin xaqiiqada iyo taariikhyahanada adduunyada salaysay ciidan soo jaway buu ahaa mar haddii ciidankii xoogga weynaayo waqooyi ka dagaalamayay hadduu soo jaway marka ciidanka wadatay su'aasha waa taangiyadii iyo dayuuradihii iyo magaciisa ku baanka taas waa la isla qirsay laakiin su'aasha doonaya ku weydiiyo waxa weeye niyada ciidanku sidoo ahaa markaa haddaad ka soo qaadda ciidanka aduu madaxu ahayd wuxuu ka ciilqabay inta dagaal la geliyey oo la yiri Soomaali waa la xoreynayaa haddana in dagaalkii laga soo saaray iyagu dee riisanka looga soo saaray waxa ay may garanayeen waqti waa askari way niyad jabka intii la doono niyad jabka taariikhdu dabcan waa taariikh aad iyo aad u dheer tafaasiil badanna aad ka haysid marka kama wada gayoonayno niyad jabka ciidanka Soomaalida la soo dirsay wuxuu keenay afgambigii ay isku dayeen saraakiil adadu ka mid ahayd taasi sida u dhacday Cabdi Salaam hadda lillahi doonaysi anqalaabku marka aan wax xabsiga ka soo baxay waa socday laakiin wuxuu ahaa رئيس وزراء سراكيل اللي يراها ودي سراكيش محمود الشيخ عثمان إفو بكوشي من الولايين ومن كتشوق على بادية اللي يراها بكوشي خرجي لله ودم بكوشي وحا يري مركا هذا تشارلز انقلاب لو سمي يابان هيسنا إلا أول أديكو دجال كوشيرو ضد كي سوماليات بالحرين يالريه وحمد سمين كريم أديكو لكن لقيتها اللي مدن مدحويني waxaa tiri qaban qaabadu way socotay marka xabsiga laga soo daayay dabayaaqadii 75 dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay isku raacsan yihiin waqtigaas inuu ahaa waqti Soomaaliya sida loo arkay ee dadka shacabkii u arkay badidooda ay daba wanaagsan haysatay horumar ay ku socotay sida loo arkay saraakiishaas maxay saluugsanayeen ogaanta waxay saluugsanayeen saraakiil dhalinyaro ah oo mutacallimiin ahaayeen waxay saluugsanayeen horto ما عليسن دجال هدول وجهه إن الجريء مركل لبعض شو عندما ده يهانتي وداق يلين يماركسي يمريسي ما يدوني سراكيل وطنيين أو صومالية أو بدها يسكتشين بيهاي هو حاجة ماركت الرمل بالك الوخس بي تاسع ماركت كريدية وطاي أنا مركان صوب حي فيالي هو سراكيش يا مدح دوها نشيل قد يريبوي ويكون تدقري وانا إلى هذين وروح أخوي أنا واحد صوبحي وربما ما هيه واحد ضاد هيسام مرتي واحد إنفورميشن واحد طلع مرجيس ودي شيء كرتا لكن إن لقى في رصاص ما فيها ترى مركز دجالك اللي قاعد دون دجالك عيدن كالوضر يا أنا واحد لا بروكاتش
laakiin haddana in inqilaab la sameeyo niyadayda raalli baan ka ahaa ha yeeshee ciidamada kuma jirin oo anigu kama shaqayn karin xafiiskayga anoo fadhiya fiya oo markaan ciidamadii layga saaray oo shacaba oo ku jira kuwii xirnaan jiro iimaan laawaasha alweedi bay talay weydiin jireenna waan siin jiray wixii kale iga baahdaanna waa u qaban jiray laakiin waxaan loo baahnayn oo aan meel mari karin oo fashalaya ha samayninaan ku lahaa wax badan baan intay damceen waxay isku dayaan baan ka joojiyay waayo intaan dagaalkaba la aadin bay fashali lahaayeen oo runtii ninku waa eegayaa ma ogtahay mas-uulka oo madaxda ahaan jiray oo tababaran oo uu eegayaa maaragtay waxa la rabo in la sameeyo iyo xoogga meesha yaalo dadka uu rabo inaan qalaabo uu eegayaa ma ogtahay haddana iyadoo aan riisan jirin oo waxba jirin anqalaab de waa kii caynaansha iyo gabayre iyo cabdulqaadir dee lagu dilay oo kale ma garanaysaa iska dhaqaaq un adigoo aan xisaabtamin dee anqalaab laguma galo dagaalka markii la yidhi waa la aadaya qaar baa ii yimi saraakiishii oo cirra kamidihii oo waxay yidhaahdeen iminka si aan dagaalka ciidanka loogu dirin oo ciidanka loogu soo baabi'in dagaalka iminka aan ka hor tagno nin waliba furuntada loo diro markuu tago inta dib u soo noqdo muqdishoan soo wada gallo oo aan anqalaabno waxaan ku yiri iyadoo la leeyahay dal iyo dad soomaaliyeed baa la xoreynaya haddii yacni aada ka hor timaadaan oo aada iminka anqalaab isku daydaan dee haddii khaa'imiin waddanka jiraan khaa'imiin baa laydinka dhigay shacabka soomaalida xataa raalli kama hadeer shacabku wuxuu u heelan yahay in dadka la doonayo in la xoreeyo iyo dalka la doonayo in la xoreeyo xoreeyuu rabaa shacabka fiilinkiisa waa la tixgeliyaa markaad wax qabanaysid anaa ka joojiyay markaas wax la isku dayla waana fashali lahaa oo naala hadlo waayo ciidamadii ku tishanayeen kulligood habeenoo madoowa inta labiska laga bedelay oo qoryo yaryar la siiyey yaa la yidhi gorilla laydinka dhigayaa ogaadeen yaa la geli waxay galeen wardheer waxay galeen qabri dahar waxay galeen dhagax buur waxay galeen goday iyagoo markaa laga dhigay jabhaddii iyadoo jabhaddii soomaali galbeed laga dhigay wanaga iminka waxaa dagaalka waagaa la ii diray anigoo dhar jabhadeed qabee oo ciidanko dhame qabee oo maana qaadan jirin maaragtay raankiskii iyo wixii iyo labiskii iyo saraakiisha ciidamada maana qado lama ogolayn jabhadiin baan nahay war ciidan intaas oo 30,000 oo nin oo intii jabhadii waa jabhad laakiin militarigii ah oo wajiyada la satellite ba jiro oo ba jiro واتاي kusoo tababartay waxaa igu soo noqotaa min fadlagtii markaa ciidankii uu soo jabay saraakiisha muddadaba ku taameeyay afgambiga inay sameeyaan ayaa isku dayay sidaynu la soconno sideedadkii sabab ku fashilmay ninkii la oran jiray allahu naxariistee colonel maxamed sheekh ciro baa maaragtay saraakiishiisii ku hargeysa lagu laayay ahay inta uu mindhacaro laga dareemay baa lasoo bedelay guutadii difaaca cirka oo sawaariikhda sam 2 iyo sam 3 iyo waxaa dalka ku difaacaysay una taliya guuto ah ee saraakiishii markii hore ay sogaayeen oo dhalinyarada ahayd uu meesha ka helay waxay ii soo direen wafti qarsoon waxay yiraahdeen aqlaabkii iminka waa in la sameeyo anuu qorshe intii u sameeyey yaa waxaan u dhigay cali baadi oo xamar aadi qorshe aadi cali baadiyana cirashii qismaan walaalkii ka yar weey waxaan ku yeelay dee aqlaab la sameynayo wuxuu rabaa qorshe uu rabaa wuxuu rabaa maalinta aqlaabka la bilaabayo wuxuu rabaa farsamo uu rabaa wixii dhantan u sameeyaan u diray waxaan iri war waxa yeelaysan 12 April waa bishan dagaal ka soo baxay bishii ku xigtay 12 April waa maalinta ciidanka xoogga dalka la dhisay
ومالين الله حصيو ومالين هذا دقدقاق سميسان لمودية إن الدبال دقيسان عيدي مالين تبغين لو هجاجة حقلاب إن حمر لقى سمية أنا ومن قرشين خنتي إن لو فشل أنا وانقرني وحنكويري ورعيدا كانقلاب قسمين هلا لأن كي تارون حمر يسكدين إن لو سميسان وقتي مركو صادرو نوديك أريد عيدن كيينا عيدن كل كونتاكت لها ويس أوجاي عيدن كيينا إن يرى دفاع كوريا ما يوصل قاتشنية بيدور عقد صومر يا أفكار كسودري ليه حكوا تام بطاير ميليتريا أو ترى هالناي مسامرك لا ترى هالناي مسامرك طبعا كانوا نوي وين كوبه عيدن ما دي قبل هذا هو هيران الجدود مدوق ومركز اسمه مدوقها إنه ولا سود قاتشني وحي ينا إلى بلعت كسر قلان أنا أنك قال أفقودي أنت بينا وعكس سيمري وهو قبل تبص سرقيش هالكاس أنغلاب جديدين إن الله يكمل تلقين لكن قبل الله وحرلها مركان لبلا إن عكسه قالوا أنا كأود قمي يقول هو تعيد حوج هو بلص حوج بوتي لكن تاسمه هو غير أضاقو أمبطة يرد بكم حسنية أمبطة واقعنا لكن إن ضد الله يكمل أن تلقينا النبض يجي لي كيشباب بحي سجال كي أوري وصدق حشر المنطقة وأنه ندير جروب وشكره بي أنغلاب كي إسكودا يوم واحد يصير يلا إذا كلاه مرينا أنغلاب كي إسكودا يوم ده يقول استنخار هديك على ده وواحد كل عشرين waxay ku galeen anqalaabka waxa weeye waa leakage kaas baxay ay ogaadeen in laga war helay laga warshahay wata ha markay isku dayeen habeenkii baanu maba islaamin intaas qaban karaan rol badan bay qabsadeen saraakiil badan oo taliyayaal haydo aasan anqalaabka soo jeeday waa qabteen hal sababta uu ka baxsaday gurgiisii weerarana waxay damceen inay qabtaan uu ka baxsaday هذا ربك عرّ ده تمركي الدنبه ما عليه الدنبه لو بيك إلا لقى حقرام لقى بدن لقى هو بدن لقى عيدن بدن يقوم هي سنة هرتساس كون فشلي عن قرابتي مركو فشلنا ما بقي أنا وياه لا بيقطع إن لبلاوي قول ما تكون حاجة شوجا ما قال اللوك اللي يردان شوجا يقدر كتال لكن دفاعي وفرنت ظهره ودولو يبولها مركان مغلي انقلاب وفشلي وحاول يوه الرئيسي وحاول محمد سياد برو إلى عدك هذا يوري انقلاب بالنسبة انقلاب هو فشل النيك وكاتو بيهاين مقيسي له وإلى عدك هذا ينكور هذا تينو سميت كلا هاي وكي أنا وياي هاي وافهمي waxaan isku dayay marka ciidankii kulli inaan abaabulo oo markaa maxay sameeyay oo markaa u diyaar garoobo wax kasta oo dhici kara haddii nimankii weli ay meel haystaana inaan u gurmado haddii laga takhalusayna dee markaa wixii kale oo la yeeli lahaa inaan yeelo markiiba waxay igu soo bilowday أمر اللي حمر صوغ ورطشبه الوغيرية ومعه سياد بروي قد كهضي وعنقلاب بافشليله ورقة فرت الوغو في غير حقيقة دليرها صاحبين هايهين وعر الشيخ وهذه أنا لقيا بان لينك صوغو وحال فهمي لينك إنان كتشرو أنا وصام في لي كوغي هذان مددي هرور أنا العلين والله الدجال كهالله بحمرك اللي يريد يسودي له مركي فشل في داعي عيدن كي يجون سكابة ولا سراكيش هذا دعوه سراكيش أريجا فرنت هذا كدجال كشوا إلى شوكتي بقول يشن يرتبن سركال بيهاي ودرجوا يمكن مركا وحاول كورنيل إلا حدقله صدح من مويانه انت كلا انقلاب كوكجري
waxaan markii dambe reer laga dhigayo reer baawaday oo kala tahay oo kan ma ahayn wallaahi ma ahayn kulligood waa ku jireen adigu reer waqooyi baa tahay saraakiil badan reer waqooyi ku jirtay markii dambana annana ma sheegin kuwii la qabtay oo maaragtay la layn jirayna ma sheegin oo annaguna waa iska bixi doonaa kuwii kalena de waxay yidhahan kolley waa laydin dilayahay badbaadiya saaxiibadiin wixii aan la ogeyn oo aan la qaban marka saasuu ku fashilay Angola sidaasuu ku fashilay dabadeedna sida taariikhda aan ku hayno adiga iyo rag saraakiil aad ka mid ahayd dhinaca Kenya ayaa u gudubteen oo waddanka waa ka baxdeen maalintii hore ee Angola ku fashilay ma bixin maalintii labaad doorkii baan tashanay taliyayaashii guutooyinka la tashaday waxay yidhaaheen meeshaan waa tuuley maxaa yeelay ciidankeenu waa ka fog yahay Muqdisho kan kalena waa ka fog yahay gobolada dhexe ka imanay haddeer haddaan duulaan meelaheena iska qaadno oo aan wax meeshii inoo ka horreeyaan jirin saraakiishaan Angola marka sagansa waxay ahayd qorsho markii wax la bilaabo inay qaarna xaggayga u soo yaacaan wixii Angola ku jiray loo baqayay waxana xagga gobolada dhexe ciidamada ka soo socda ay ka hortagaan oo markaa nala soo gadoomaan nala yimaadaan xamar ومركا أكشن كواحد كجلان ما يهيني ده ماشي بكبلابين ماشي وي مارتي كوفشلين ماشي با لوقب قبتي قار لقبتي طبعا عشان كدي وانتي بحثين وباديين ويين يوم بادية شو لقبتي قرتي إن إغلاب كاس ليسكود إساس وكوفشل مي إن أديك يسرى كيش كل سنة شيء كينيا مدة شوكتين كينيا نوا كجذبتين أو حاو جذبتين إثيوبيا دتيل أنا كوشة كمية دوني سام بس أنا كودر ما. تاريخ الكود الجيون بينه. مركا واحد سلاي هنا هو مهم. مركي ما أنت اللي بعد المرئي. وعيدا كيجينا وإسكالا بلاي. وحالات الشرعية ترياش الجوتوينك. مركا شوي. وهم كويري هو أركتانه. الحمد لله. وحيرا هذا بركة الله وهذا إنه أكشن مجري كروه عم قلت وأنا اللوجي هي وح إنه كل شيء ريه يعني نسكبحنا وهذا إثيوبيا هذا إنكسر دجال وكمان نوع كريه ويجي بنك سكالي فدي يعني دعو أنا بنك صناعي فدينا إله ويسموه قلنا ما له الله يسحب علينا وحيرا هذين ياخذوا النقطة كينيا وحنا قد ترساني إن قالنا وبوليتيكال أسهيل مويدي سنو بس هو شيء تي والله يقول راعي سراكيل جروب وقوم يتبعه الراعي باور ما كوباني وعيد إن كانوا ملاحظ وأهلنا مركان إحمريني دوروا إلى بولحة وعيد الدفاع كريتشري وعيد كي سلام بابا نروق قبنا جبنا وعندنا قوانين ثامن شفتوا. ليدل من أوجد طبعا اللي كون هيننا. وحنا أسرعنا إلى جرني. من درانو قال يجور قلبه. من درا يبوله حاونا. ويسمو غدا. ويسمل. الربور بكو اللي شري دحضه أنت كله. ويسوون جروب كلو أمغدا. هاتنا مقالين فيك وينادين ويسكسي دو ويلات. كيان هي با وحين لقيين حبسيقا بوليسكا ومديرا السيلس نما يجرين وحين الليجيين قريو وحنفلا يا إني كبقين إن إنتنا لكده ويما دحوق أنا لك رقعته أما الله بصدق إن فاكت أنا مركان بحري ومديرا قال لي وهبين كينا لواي واللي سكود دي أنا أصلا وركو هايو إن عيدنا لك صوت دبدرون عيدنا لك صوت دبدرون هذا واحد open war between كينيا وصوماليا صوماليا نقول له هذا لما يسمعين صبح دي دنباب مع القابات بابور سيدي وحنا لابو قاضي يهوب كيري ديورده وحا أنا سيمر رأي مقالة اللي هذا وشير أيرفور كذا وحنا لابد شيء جارس أو عاصمة أو قبل كوقوي بري
وسومالي دقنتها دولة من عشان لكوها أنت وأنا الوريساني لو لسك كهونا يا وحاط تيمية وحاط هاي وحمد عيسيو سومالي ولا بشك سيء آخر كيو إن أخبرنا وحي راه سوق هذا نيروبي كان نيروبي بان ورئيسها أنت دراك كوسي ويدينين ساسا نيروبي كنت ورئيسها ملك رمضان أنا برئيس كونفرنس السمية مكان وحان شيء أيام درا إن يستحي انقلابكي إنه ما قفش عليه وحان شيء إن أي دعدي وحيابا رمتي أنا لقيت تلقي ده انقلابكي في الصلاة أنا وصوب عشان المجالية السياسية بعد يكون يبقى قلتي إنك استوى دجال أنا نحمرين وضمضة كينيا سوماليا هذا الخلاف كي واحد شري لمبت كهكيتوبيا وكلادين عدولك سوماليا كينيا ودحي marka la kiikii diyaar uma yahay inay martigeli soo jabhadiya wax ka sameeyaan jabhad ma golayna waa diideenay Nairobi ana la geeyay Nairobi wana la ku wareystay wareysiga markaa ka press conference ma qabtay yaani waxay malatay waxa yeelay inaban ka hadlay ana waa ishaaray sida inaan ku haray hadii aan qalabkii fashalay oo mid hore fashalay oo saraakiil badan la laayay anagu marka dagaalkii waa bedelaynaa نوعيسيو انقلاب دنب قلمينه دغال هويسان او شعب بان كوغا هورتغينا كعانك سياد بري بان افريقيا خير hadii hada عادي waa la tago cajaladii waa helay markaanu maalma joognayna waxa noo yimid qolo soo daf loo oran jiray oo awal dibadda jirtay oo jabad sheegan jiray laakiin aan ciidan lahayn operations gelin waxna qadan وصليقود هالكوها مركا لماذا إسكا مرتي هابي هاي أنا إثيوبيا أنا مركي أنا ورهيب على قصار ميل صليقه هاي ميل كوا ميتشرين قارنا عرب تولي تشري قار ميل كلو تشري لما وحيا هاي أنا دو بن قواتي رجع سوحن كجرامية نكمل هذا وحان جرامية حقيقي اسمعوا على غرف وكملها قارير وقوي يا كوشير حدير من ماركتي شو يوسف لين هذا دير يا كوشير مقرن إنسان يوسف ديرنا يو إسكوفيرتي ما دكتور يا يبنو النوي ما دينو waxay nala qaateen firadii ay dagaalka in lagu wado jabhad Kenya lala hadlay Kenya waa nadiid laakiin wadina waa nasiisay waa nadiid Djibouti markii ay dhaatay oo ciidan ma lahayn magiciisana ma lahayn iyada afkana jabin lahayd markaas ay nimankii awal Ethiopia joogi jiray waxay yiraahdeen Ethiopian la hadlaynaayo وقت أنت ودرين بيلصوا علينا وحال يريد ديار welcome ورنا واحد يصير دمشق وكسر دجال لما أنا العين وإحنا يري ما هي مدين واعتقني أنه وفتئة مركه واطي أنا واحد راعين الأورنجي أنا صاحبه عنهم تيجي إهرانا أحمد الهدير وسرقيسي وكتيكم ده هذا السلام مركان تكمل وهانو تكمل الله يتوان كي جولاي تدوات الإسدادي قروا أنا لدى شيء قال يا أول مجلس الرئيسي ومهل لكل شيء وهانو لدى شبهنا لسنا أو لسنا يوم نصيان بيسسكي يوهي يو عينك في صوماليا إنتانو ككنسر صومالي جديد أنا شباب أنت كده مركها كده قال كلو أو وحكوا أفهم إثيوبيا من جستة شوبة وإسنا كعان شيء غنية واللي بهنتي ولاك شيء غنية حقي كلنا محمد سياد بريه كعان في سبات شوبة وهو ميليتري من جستة نويا ووتكنا وهو منير سيدا وهربتان وأوشنا وحان ربنا بيسس إن مجلس الإسلام
xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa oo dhinaciina ah si aan marka hore ciidan iyo magciisi iyo waxay isu abaabulo oo isu hubayno operationska markaan bilownada Soomaaliya gudaheedan ku dagaalamay mucaaradkii badnaayo anagu aan ogeynoo Soomaaliyeedna wuu naga haray reer waqooyina waa naga haray Cabdisalaam adiga hadir inaan ku sheego wax dhammaan ma arkay beelihii kale oo maaragtay koonfur joogana waa naga hareen inta iyadaanay rag isku wada beela baanahay laakiin siyaasiyiinta reer waliba ku jira ma garanaysaa mahama aan weli ilaawin noo soo jeedi waa Mingiste ha Mingistana markaa ka hor anigu maaray wuxuuna yiri anagu haddaan Itoobiyaan nahay waxaan ku maahmaanaa shabeel dabada lama qabto haddaa qabatana lama sii daayo suuqa ku cunay marka hadda anagu waxaan leenahay maahmaadaas iyo dhaqankaas ogaada buu waa idinka aqbalay taladiini waayo haddaad siyaad barre la dagaalaysaan yani waxba kama qabo saasaan horta ku helay Ethiopia autorisation ina saldhig ka dhigataan markaasaanu ku noqonay Nairobi markaasaanu awaabul galay markaasaanu siyaasiyiintii keenay markaasaanu dhalinyaro badan oo meel walba joogtay u yeernay oo keenay labadii urur ugu horreeyay oo aanu jabhad ka asaasnay bayska magaalada la yiraahdo waxa la yiraahdaa erer gooto oo dirdhabe 70 kilomitir ka dalbeedaysa oo ciisaha ay degan yihiin halkaasna bayska dhigan oo tababarkii hore ka galay kadibna de waa tay jabhadii markii dambe waxay u xubsiibatay sida loo socono ururkii ama jabhadii SSDF ila qaar kale noo yimid maanu markaas raacnay SSDF markii hore Somali Salvation Front yahay markii dambe qola maaragtay bidix ahaan jiday oo cadan fadhigooda ay nagu soo biireen bay yiraahdeen magaca waxa laga bedelay waayo waxaan wari maxaa yiraahdaa magacu waxna yeeli maayo runtu waxay tahay waxaan aaminsan gartay markii dambe jabhada kale ayaa iyaguna soo biiray oo SNM ay kamid ahayd oo Ethiopia idinku yimi adoo soo koobaya dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday sida aad la socoto mudane waxa dad fara badan ay wax ka saaraan in jabhadihii ka soo jeeday dawladda Soomaaliya ay u suurta gali weydeen inay midoobaan adiguna dabcan waxaad muddada madax ka ahayd jabhadii SSDF maxay taas ku dhacday annagu raali waanu ka ahayn fikradaad iminka soo jeedinaysaan qabnay hadaan SSDF ana madax u ahaa bayska iyo qolo walba headquarterkeeduna dirdhabe ahaa marka horta group baa yimid magaciisii congress bay sameeyeen way isbedeleen markii dambe Siilaan yaa yimid Ahmed Mohamed Mahmoud Siilaan oo iminka siyaasiya baa madax ka noqday SNM baanu fikrad u jeedin personally ana u jeedin raggan u jeedin Siilaan uu ku jira hadana uu jooga waxaan ku niri waana dirdhabe waxaan ku niri si aynu hadiiba ugu guuleysano waqti uu soo gaabino halganka riitaanka dawladda la diraysana aan soo dedejino aan isku daro jabhadaha wixii kale mucaarad oo yimaadana hayla la midoobeen ila markaa wixii waa ka baxayaan qabyaalad iyo gobol iyo magaciisa way ka baxayaan oo xoogaabaya dagaalkii oo shacabkiina uu si ayidi ninka hadalka yiri anigu laakiin waxa ku soo tashanay waxaan ma ahayn laba group oo leadershipkii labada jabhadood oo miis wareegsan isoo fadhiya Siilaan ii jawaabay wuxuu ugu yiri ama nagu yiri adeer arrin 60kii khaldantay ilaa aan mustaxano
إذا لم يدومني وافهم أنا أقول وجهه وايو كوبي اللي حدن كي انغلاب حسن كيد سراكيشي كونفوريات كايدو شوكتي وقوي بنقول قوس الشراس حسن كيد سياسيين بكدم بيسي سياسيين تو وحرين مركي أي إنمضوا قبصدان قبل هذا وقويك انت ضروري كيجا من الكونفوريات كا نغلبتان قوس الشيء كله واقع بكذا إني تيمون دوس حدان وانقرتانا لكن waxay tilmaamaan sida la socoto in farq idin dhaxeeyay way tilmaamaan laakiin waxay tilmaamaan oo kale in goosashadu ay ahayd mid ka dhalatay arrintii burco iyo markii cali mahdi la caleema saaray iyo wallaahi ana waxba ka jirin min gistaba kula heshiiyeen intaan siiraayo madax noqon oo min gista markii daba waxaan ku diray doonay ka mid tahay ilaa Soomaali meel wada joogto oo iska qayilayso oo markay waxba kala qabsadeen goordama markay noqoto kii wax lagu leeyahay uu sheegay personal ana ogaa leadership kiiga dhanba ogaa anaga qaar waqooyi leadership kiiga ku jiray magaranaysa goosashada bilowgii bay wateen oo min kisti ku leeyahay hadday ku carabiyeen wax kala ku sheegaan wax jira ma absal ilaahu bayna markaa ka yaabay weydiideen macnuhuna wuxuu ahaa goosashadii koob iyo lixdankii inqalaabkii la isku dayay ee fashalay in inta guul la gaaro la meel maray dee haatanba yaa ku khasbay waa goosanay markii rejiimkii maxamed siyaad barre dhacay soo intay kongarees isugu yimaadeen oo shireen may caddayn oo kuga dhawaaqeen gobolada waqooyiga waa goosanay sidaa tilmaantay waxyaabaha hogaamiyihii waagaas Ethiopia Mengistu Haile Mariam iskaga hortimaadeen ayay ka mid ahayd arrintan aad sheegtay inuu dhiirigelinayay ee goosashada waqooyiga maxaa isku qabatay kala Mengistu waxaan isku qabanay 5 iyo 4 iyo 8 annagoo 5 sano 6 sano dagaalamay horta SNM waxay timi 4 sano oo dagaal ku jiray Soomaad garan awal kaliya nooy markay yimaadeenna wala hadalay waa suuragal weeyday inaan midowno markii la gaaray 4 wasiirkii hore oo arrimaha dibadda oo Ethiopia oo markaa joogay goosho walda baa la oran jiray baa idaacadooda ka hadlay wuxuu si open u yiri balanballe iyo galdogoba anagu aanu joogno qabsanay oo ciidamadii Soomaaliya qabsanay oo gobolada dhaxa wuxuu yiri balanballe iyo galdogob waa part and parcel of Somalia waa qayb aan ka go'i karin dalweynaha Ethiopia waa sabab wada hadli karaan lahaanshahooda haddii xuduudii la calaamaday inta lagu heshiiyo la calaamaday dhulka la maray marka inay gorgorsan tahay aad wada jeedaa awalna waxaan ka il qabnay kala goynta laakiin aan ognahay muu ogay waxaan shiriyay markaa executive committee iyo ururka yaga waxaan ahayn 11 goor galaba meesha warnkii waxaas ku hadlay inuu martigeliyay inagu maxaaimiin baynu ahayn dalkooda khaain ku ah mise regime baan la dagaalay meel regime baan la dagaalinayo nagu wadanayn baan deesaas la yiri maxaynu waxa la yiri horta waynu hadlaynaa ninka idaacadii buu joogay qoori idaacadii markaa naga dhaxaysay anagiyo SNM waxaa la yiri ka hadlaynaa idaacadayna siiyeen qudheedan ka hadlaynaa ragii walaalna walbo kay foorinkan
قابل سنة كي ورفافين تنو قابل سنة دهبل وادي كاونتر بارتيكا هو أهانك هذا حتى هذا بالام بليه يقولوا بسومالي بقول يلا إن كان له هذا نجا شوبنا لقوا نقول قرتين كانوا نقولوا بقدرين مرة هو ذا بقدرين ما هو هنكو إري هذا وحلوة بهاي أما إن أمد الصومالية هرتي هذا خائمين إنه نقول إنه إيش سنة يوكو تلاقى أم بكرة مسكرة أرنتي إذن كأيري إذا قدر أي نصيحة كهذا أنا وين لقات هذا دين إذن كنا هذا شان أنا خليا وهنقول يا برام بلي يا جلدوب ودموي كم من الصومالي الصومالي كتير سنة إم كتير سنة والقول أحمد دور صومالي ملك كتير سنة هذا أنا نلاقيكم لو قمنا نقول قرتين كانوا مركز لبعض مركز أولا كهذا لا قوس شيء وحنا إثيوبيا وقدر على ما يصير من نمط إثيوبيا وإريتريا يقول الديري صومالي إن لك على شرو كما أقبل كرو أتاك بوار كريم لكن ومبدأ اللي قربي إنه ودني إنه يرهدوا. وأنت مكي وكايد عدد كشيء. كاس يجوا قبا. بدحدي شباب دحدي وحكك على رق مارتيه. إسكت عليه وأنا ما رح نقضى عنه ترتيب. أرنتي ودين برب لهم بيشجعين بينه ومارتيه الرومانستي. لكن واحد بنت تاي ولا لا يوحري. وهو يبلن بلي يقلد. هل كانت كحر لك؟ يقص شر. waxaan ku xirnaa xabsi ciidamada militarigu leeyihiin aeroboortka magaalada dhexdeeda ku yaal ma taqaan waxaa la yiraahdaa all airport kan international ka ah oo hadda meel kale laga dhisay ma kaas boole airport baa la yiraahdaa halkaas afkeeda soo magaalada xiga xabsi ku yaal baan ku jiray muddo intee lag baad ku jirtay kaligeena ma ahayn nin baa la igu daray oo ila xidhnaa laakiin xabsiga lagu dilay ayaan dar من سياسية أو متعلمة أو وزير هانشري أو غرفة فين هانشري أو عبد الله الأورنشري فاش من خاطر تربى الجدري حبسيا الجدري لكن أنا وننا الله هذين وقول كيان سكتشوا وياه ليه سنة قولنا الله واطي سودين تادي دمبه waxay ku soo beegantay burburkii dawladii Soomaaliya iyo dhicitaankii dawladii Mugisto isku waqti ahaa xukuumaddan cusub ee markaa la wareegtay talada Itoobiya ku soo deysay Soomaaliya iga soo deyn laakiin ma bay ogeyn beenan meesha ku xirnahay baan malaynay markii magaaladii habeennimadii ay ciidan badan soo galiyeen ee aroortii strategic maartay positionistii magaalada warfaafintii iyo magaciisii agaasi bay qabsadeen wadooyinkii oo dhan bay kala jarjareen dagaal baa ciidamadii wixii joogay isku dayeen inay jabayaan bay garteen ciidankii xabsiga hayay oo military police ahaa markuu arkay meesha in lagu kala yaacayo bay iska yaaceen marka gruubkii u dambeeyay baxsanayay baa aniga galabtii hore dadkii kale oo dhan la sii daayay aniga habeenkii xabsiga ku jiro habeenkaas oo dhan moortar baa lagu garaacay laakiin dadam taadi gal dhiman weysay oo inta iska labistay iska fadhiya subaxdii baa kuwii ugu dambeeyay cararayay baa albaabkii soo furay handaraab baa ku jiray albaabkan kowde kulmis noowiga markulmis baa tahay kulmis yani idaacadda magaceedii weeye magaranaysaa ha awanay waxay igu yiraahdeen alaabtaadii intaa suran kaliya oon maalintaan soo galay watay baan haystaa baan ku iyo intaan gashana waa qaateen sheebka waxay ka heleen konton bir oo nin jaran ahaayo galabtii hore la sii daayay oo daaqadda si qarsoodi iiga dhiibay oo war haddii lagu soo daayo tas ku soo raac waxaan iri qaato inta aan qabo inta ii daysaan
aan iska bixin daay waa arkaan in meesha ka cararaya haddii haddana la igu xiro oo dawladdii dambe igu soo gaadho meesha qabsatay dabcan way sii dayn lahayeen dabcan soo daynta laga soo daayay xabsiga ku yaala magaalada Addis Ababa kadib markii ay dhacday dawladdii hore ee Ethiopia ee hogaamiyaha uu ka ahaa Mengistu Haile Mariam waxa ay ku soo beegantay burburkii iyo dhicitaankii dawladdii hore ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre wararka ku saabsan wixii intaasi ka dambeeyayna waxaan u malaynayaa dadku waa ka wada dharagsan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed adaa mudan mahadsan